war degdega Somaliland hogaamiyo madaxweynaha imika ee ka arimiya Cabdiraxmaan Ciro oo kaashanaya sirdoonka Mossad iyo Israa'iil ayaa la sheegay in qorshe halis ay ka damacsan Laascaanood xilli halkaasi ay tageen ciidamo ka socda xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa goofa gaduud ee halkaasi isla markaana uu booqan doono khamiista soo aadan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si loo caleemo saaro madaxweynaha ee dowlad goboleedka ee Waqooyi Bari ayaa la sheegay in Somaliland ay damacsan tahay in halkaasi howlgal gaar ah ay ka fuliso ciidamada Somaliland oo tababar khaas ah la siiyay ayaa la sheegay oo kaashanaya isla markaana xogaha ay ka helayaan sirdoon ee Mossad ay ugu kaalmeynayso ayaa la sheegay in qorshe culus ay ka wadaan Laascaanood isla markaana ay doonayaan in gobolka Sool ay mishimo adag ay ka fuliyaan xogtan ayaa la helayaa isla markaana soo baxaysay saacadii ugu dambeeyay in Somaliland ay gashay diyaar garowgii ugu xooganaa kaas oo ay ku sheegtay in markaan haddii dowladda Soomaaliya ay tallaabo qaadi weysay tallaabada ugu horeyso inay qaadi doonto Somaliland oo hogaamiyo Cabdiraxmaan Ciro isla markaana kaashanayso Israa'iil horey waxaynu halkan ku baahanay in Israa'iil ay ciidamo gaar ah u ballan qaaday Somaliland kuwaas oo taageerayaan sirdoonka Mossad xogaha rasmiga ay ka helayaan iyadoo Somaliland ay noqonayso mid ka mid ah sirdoonada ugu awoodda badan ee Afrika iyadoo kaashanaysa sirdoonka Mossad xogahaasi ay u fududeyso waxaase la sheegaa in loo fududeeyay dhaqdhaqaaqa iyo goobta halkaas ka socoto caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari Cabdiraxmaan Ciro ayaa la sheegay in ciidamo gaar ah u xilsaaray mishinkan ay fulin doonaan balse lama oga cidda lagu beegsan doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mise carqaladeyn ayay ku sameyn doonaan gobolka Sool ee Laascaanood halkaasi ay ku la sheegay inay ka bilaabmayso caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari waxaase la sheegay in arrintan ay caqabad ay ku noqon doonto ciidamada halkaasi jooga isla markaana ay ku adkaan doonto haddii ay suura gasho in ciidamada Somaliland ay halkaasi ay ka fuliyaan weeraro qaar kuwaas oo la sheegay inay ku arqaleyn doonaan caleemasaarka madaxweynaha ee dowlad goboleedka Waqooyi Bari oo horey hanjabaade isku dhaafsaday isla markaana gobolkaasi si xoog leh loogu soo jiray dowladda Somaliland oo kaashanaysa sirdoonka Mossad waxay soo gaareen xogo kala duwan oo asaasi ah kuwaas oo la sheegay in loo baahan yahay inay ku dhaqmaan ciidamada gaarka ee Somaliland oo doonaya inay fuliyaan mishinka isla markaana gudaha gobolka Sool ee Laascaanood ay ka geystaan weeraro sirdoon kuwaas oo si dhinaca kalena la sheegay in la qarin doono ciidamada fuliya ee mishinkan iyadoo waxna aan gaarin khasaarana uusan ka dhashin oo ayaga dhinaca ciidamada Somaliland la sheegay in loo baahan yahay in lagu guuleysto siday u fulin lahaayeen ilaa hadda lama cadeynin cidda ku socotay howlgalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mise caleemasaarka ayay qalqalgelin doonaan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas u tagi lahaa ayay ka baajin doonaan mise markuu madaxweynaha tago ayay fulin doonaan mishin gaar ah oo ka dhana madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari